inay ku tiraahdo ila guursan maysid ballan igula gal ama fur ama indhaha gooshana adoo soo taagan oo qayl yahay isfasaqi hadduu la guursado oo shardigii jabiyo ayaduna waxay xaq u leedahay inay isfasaqdo yahay sheekh nin ayaan isguursanay kadibna wuxuu igula ballamay inuusan naa kale ila guursanaynin haddii uu guursadana uu madaxayga isiinayo wuu guursaday markaan ku idhi maxaad ballanta uga baxdayna wuu igu inkiray arrintaas aad bay ii dhibtay waxaana diyaar u ahay inaan ugu dhaarto inuu ballantaasi ila galay ee maxaan sameeyaa haddii ay doodi ka taagan tahay xaqiijinteedu waa mas'alo laakiin hadday sugnaato inuu shardigaa ku guursaday shardigaasi ma asaxaya mise ma asaxayo waa mas'alo ay fuqahada iyo culimmadu ku kala aragti bedelan yihiin qaybta hore culimmada ka mida waxay leeyihiin shardigaasi iyaduna ma dhigan karto ehelkeedna shardiga uma dhigi karaan haddii la dhigana guurku waa asaxayaa shardiguna waa baadil waxba kama jiro waxaa qaba madaahibta saddexdaa xanafiyada iyo maalikiyada iyo shaaficiyada ma asaxayay leeyihin lanna waa shartun laysa fi kitaab illah halkaasay mareen qaybta labaad ee culimmadu waxay leeyihiin shardigaasi haddii uu ninku haweenayda ku guursado waa shardi laazimayo asaxaya waay wabitaali hadduu sidaa ku guursado waa inuu shardiga ilaaliyo lama guursan karo hadduu la guursado oo shardigii jabiyo ayaduna waxay xaq u leedahay inay isfasaqdo ama fur ama indhaha gooshana adoo soo taagan oo qayl yahay isfasaqi taana waxaa qaba madhabka xanaabilada salafkii a'imadii saxaabadii iyo taabiciin badanna waa laga wariyaa madhabkaas madhabka dambe baana daliil ahaan xoog badan shardigu inuu asaxayo ninkii galayna waa inuu ilaaliyo ila isagaa mareeg qoorta la galay isagaa mareeg qoorta la galay ilaali maxaa daliilu ah nusuusta caamka ee tilmaamaysa ballanta ha la ilaaliyo qur-aan iyo sunnada leh soo maahayn yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud ayib وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا عمومك أحد نصوص تاسي ويتلماميس وحتى الماما يا حديث كالترمذي وصوصاري يا غير كيبا أو حسن كأه يا أبو داود يا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم مسلمين تشروط وضي كدل سجين يا شرطي عاد مسلمين تلقش وين هذه العلش عمرنا وكيلي مقاطع الحقوق عند الشروط حقوق ماشي كوغو أضوى شروط أكتر مركا شرطي كشو حقي عاد شرطي كو خدي وا غوين وحاجينا حديثك في الصحيحين كوي من النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أوفيتم عليه من الشروط ما استحللتم به الفروج شرط اللي أوفيو لا إلالية وحا أغو حق نما بدن shardiga aad dumarka xubinkooda ku xalaashateen markaad soo xirigelinaysa shardi baad ku soo xirigelisay xubinkeedana kuugu bannaanaaday shardiga isaga inaad oofisood ilaaliso waa ka ugu mudan shuruuda waay ayib inay ku tiraahdo ila guursan maysid ballan igula gal haweeney ma guurka labaadi shay waajiba ma shay waajiba ama waa mubaax ama waa mustaxab sooma marka shaygii mustaxabka ahaa ama iska mubaaxa iska bannaana haddaad shardi gasho inaadan samaynin shardigu waa laazimaya sooma shardigu waa laazimaya ma aha xaaraan in aad shardi ku gasho marka xaaraantu ma asaxdeen laakiin waxa shardigu gusay waa shay ama xalaal ku aha ama mustaxab aha
kaasoo kale markaad shardi ku gasho inaad ilaaliso waa saas daraadeed waxa xoog badan masaladan ku xoog badan madhabka xanaabilada wabitaali ninkii haweenay ku guursada inuusan la guursanaynin waa inuusan la guursan hadduu la guursado wuu khiyaamay ayaduna markaa way isfasaqi kartaa maaha inay markaaba furmayso oo iyaduna iska dhaqaaqi maaha macnaheedu waxa weeye iyadana qaadiga u tagiyo xarigeedu goynay waa fasaqaya laana waad uga baxday iyaduna way kaaga baxday wallahu a'lam marka hore miir qabtaay marka miirso oo tartiibso wallahu a'lam